fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka fartaha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogeynaynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeena fartaha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka fartaha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka. بسم الله الرحمن الرحيم داوديال فيرسديال نديال شفييال لقيال وارديال نوحيسيال نيحيسيال نسوغيال أنغانا سوغيال وسلامنتهين سلامك بعد كسو دوادا برنامج كي عرورتا برنامج كي أضياشا برنامج كي دالينياردا أو أها فاليها خرنكا او نبركشاتو اما مر والبا ان كسو دينو شاشده وين ee caalamiga ah Universal TV gaar ahaan magaalada intee wahe Muqdisho daawadayaal qodobada caawa aan idin hayno waxa kamid ah dilkii loo geystay ninkii Soomaaliyeed ahayd oo Soomaaliga ahaa daraad Daarushifa agteeda ee ay u geysteen ciidamada Amisom dhowr shil ayay sameysay waa ku dhufoo ka dhaqaaq barbaleen badan ayaa ka taagan wadanka qofka hadii la dilo amar Allah waa dhici karaa amar Allah lama diidana haddana waxaa jiro suspect waa in qofka loo istaagaa la qiimeeyaa waa ciidan wadanka loo keeni in ay nabadgelyada sugaan ma loo keenin inay rooraan waxaa kaloo ka mid ah qodobada caawa aan idin hayno Hotel Jubba oo ahaa barisamaadkii meel dadka ay ku nastaan ama ku baashaalaan waqtiyada ay shaqada ka nasanayaan dad badan oo dhalinyaro ah ayaa hobbigooda wuxuu ahaa in habeenkii Hotel Jubba ay aadaan waxaan xasuustaa Jubba xataa in loo ogolaa jirin lama kab kala gadinin wata ma loo ogolaa jirin 38 iyo 37 xataa ma lagu qayaani karin weeneesa taali oo lagu fiiriyay ka waana bardiisa xataa dacas iyo maxaan ku leeyahay iska dhaafsan dalo kaba kooyo luudz oo galabtiisii loo bilaawo mariskiisa cishii la dhameeyay ayaa lagu gali jiray qodobada kale aan barnaamijka caawa aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah aragti ahaan barnaamijkan faaliyaha qaranka sidee ayay u arkaan dadweynaha ama daawadayaasha ama fiirsadayaasha ama sugayaasha daawadayaal fiirsadayaal nadayayaal intaas waa qodobadii warka ama warkii oo kooban oo koomba ku jiro iminka iyo haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii oo fidsan oo la feeray oo fiyooro lagu daadiyay oo idinkana ku fahmaysiin anagana ku fahmaysiin barnaamijkeeni faaliyaha qaranka waxaa kaloo aan caawa ama aan idinkugu haynaa ama ka mid ah qodobada aan kusoo qaadahayno sida aad la socotaan mas-uuliyiin badan ayaan wareysi la soo yeelanay ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Madoobe ma dhamaanin farikama qodna faanoole yaana noola qaadanin inaan qof ku qatogno ama qof aan qaniinsha ku hayno annaga qosala ka suubsanahay qarankan dhisoynaa yaa noola qorin annaga koox qaswadayaal inaan nahay barnaamijkan waa ila qosol oo kale waa barnaamij loo suubi baashaal waa barnaamij loo suubi fahmo waa barnaamij loo suubi cuqdada in la iska saaro waa barnaamij loo suubi Soomaaliya inay ku midoodo waa barnaamij loo suubi Soomaaliya inay sacbada isarto waxaa loogu talagalay dadka habeenkii markay nasanayaan guryaha ay joogaan inay xoogaa ay isaga qaraaxaystaan waa barnaamij qaraaxa ah wareysiyadeena waa noo socdaan
waxaana caawa wareysanaynaa hadduu ilaahay raali ka dhigo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa wareysi faaliyaha qaranka caawa ka qaadaa qodobadeena warkana waa ka mid yahay. بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا ورئيسي قارة والله يلاناي مدحوينها سوماليلان أحمد محمد محمود سيلانيو مدن مدحوينه كسو دو مركه هوري تلفزيون يونيفرسال waa sanad waan ku dhawaay waxaa la soo gabagabeeyay shirkii dowladda federaalka iyo Somaliland maxaa Soomaaliya ka aaminsan tahay Soomaaliya waa dal aanu darisnahay shirkii Turkiga looga hadlayayna ma ahayn shir in Soomaaliya iyo Somaliland lagu heshiisiinay ama dib la isugu soo celinayay wuxuu ahaa shir danaha labada dal ay leeyihiin looga wada hadlayay mudan madaxweyne waxaa la sheegay maalintii wax inaad talada ku leedahay laakiin habeenkii qoyskaaga ayaa maamulo maxaa ka jira taasi waa iska hadal tiro bini aadmi aniguna fiidkii baan seexdaa haddii qoyskaygu ay maamulaan waxay ka mid yihiin qaranka Somaliland oo wax dhiba ma laha mashaariicda wadooyinka waa la dardar galiyay mudan madaxweyne ma madaxtooyada la hoos keenay wadooyinku waxa weeyaan ilaha dhaqaalahu ay ka yimaadaan haddii ay madaxtooyada soo galaanna wax dhibaato ah ma lahan wasiirka madaxtooyaduna waa nin shaqo badan howlkal ah mudanna hadday hoos yimaadaan wax dhibaato ah ma lahan siyaasiyiintu waxaa filtan siyaasadeed ayaa ka dhexeeya siilaanya ahaan siyaasigee ugu necab tahay anigu siiraanya ahaan waa Faysal Cali Waraabe kan gudoomiyaha baarlamaanka ah xisbiga wadana madaxda ka ahna isagana waa la mid tiyaatarkii golaha fanka waxaad ku tirtirtay dekreeto madaxweyne waxaadna siisay salaadiinta fanka miyaad necab tahay anigu fanaaniinta ma necbi laakiin fanaaniinta iyo odayaal dhaqameedyaduba waa hadal ku nool sidaa darteed ayaan golihii martiga madadaalada waxaan ku qanciyay odayaal dhaqameedyadii fanaaniintuna guryahooday joogaan madaxweyne waxaad u muuqataa nin caro badan markaad carooto maxaad dareentaa taa dadku in badan bay isweydiiyaan laakiin anigu siiraaya ahaan haddaan caroodo cidna ma garto Puntland waxaa loo doortay Cabdiweli Gaas oo horay ra'iisul wasaare uga ahaa Soomaaliya mana u hambalyeeynin maxaad ku qoonsatay anigu Cabdullaahi Yuusuf ayaan ogaa ma cid kale la doortay haddii wax codsan lagu dhihi lahaa maxaa codsan lahayd muddo dhowr iyo 20 sano ah bay qaadatay gooni isu taagga Somaliland aqoonsigeeda in badan baana lagu daalay arrintaas dadka Somalilandna dad qancaya ma ahan balse anigu waxaan codsan lahaa in ummadda Somaliland la qanciyo madaxweyne fanka waa jeclaa tiri golihii murtidana waa xirta tiyaatarka fanaaniinta aqaladooda ha joogaanna waa tiri fanka aad jeceshahay waa nuucee fanka aan jeclahay waxa uu yahay sida xeeskan dalkayga nimca fadhida kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ku wareysanaynay barnaamijkeena faaliyaha waa mahadsantahay mudane madaxweyne ciidamada AMISOM oo ah ciidamo nabad ilaalin ah
waddankana loo keenay nabadda inay sugaan nabad ilaahay baa sugi karo dadaalkuna waa meeshiisa waxaa dhacda marmar ciidamada amisom in ay shil galaan ama baabuurkooda baabuur ma dhihi kari dayuura ma dhihi kari tariin ma dhihi kari bajaaj ma u eka vesba ma u eka biskuleeti ma u eka siisyahay borta ilaaha og ika usoo suubsadeene haddana waa baabuur aad iyo aad u culays badan saddex bay iskula socdaan sida la fahma ama la ogyahay baabuurka ugu horeeyo hadduu qof shiido kan lamaad maka jiirahay halihii kale dhexdaad shiidaa kan saddexaadna laguhaas dhammaystirooya marka waxaan dhihi karaa waa mistake waa qalad bini aadanimada xataa ma dhigayso xuquuqul insaanka ma dhigayo amar waa dhacaa ul waa jabtaa amar eebasoo idmiyaa ogaa karaa horta waa maya wax walba xag alla waaye haddana waxaa loo baahan yahay in jidkeeda la maro suspectiyaa loo baahan yahay qiimeena loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay apologies macnaha hadday istaagaan oo qofkii soomaaliyeed ee ay dhibka u geysteen horta ay qaadaan oo ay gaariga saaraan runtii waxaa la dhihi lahay waxaan waa shil laakiin in qofkii meesha lagu shiido haddana laga bartiireeyo xoogaa waxaan u malaynaa in xataa quruxda adduunka xataa maaragtay sadma kulaha kaas amisom dad bay jirtaa waana jabsataa marka waxaan leeyahay waa wax aad iyo aad macnaa loogu xumaado arrin warkaasi ku saabsan waxaa inoo haya cali hiiraan haye gacmo socod kusoo gale gacmo socod adii amisom waay ilaa iyo haatan dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa ku wareersan sida ay u dhex mushaaxayaan ciidamada amisom wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ciidamadani waxa ay sameeyaan waxa ay doonaan dadkana waxay ula dhaqmaan sida xoolaha oo kale waxa ay jiirsiiyaan gawaarida hadda ka hor ayay ahayd markii ay toogasho ku dileen xaaskayga ubax cabdi waxa kale ay sameeyeen dad ku dukanaya masaajidka kiiloomitir 4 ama lambar 4 ayay gaari jiirsiiyeen ilaa iyo haatan cid wax iska weydiisay arrintaasi ma jirto sidoo kale waxa ay taxi jiirsiiyeen uu watay nin muwaadin ah oo Soomaaliyeed sidoo kale waxa ay dileen naag xaamilo ah oo 9 bilood ah taasoo ay jirto ilaa iyo haatan cid is weydiisaan ayna jirin dhacdadii ugu dambeysay oo ay sameeyaan waxa ay ahayd nin muwaadin oo maraya jidka ayay 3 gaari ay laayeen ayay jiirsiiyeen kii hore markii uu jiiray kii labaadna jiiray kii saddexaadna jiiray ayaana dib xitaa loo eegin arrintaasi oo dadweynaha Soomaaliyeed aad iyo aad ugu xumaadeen ayay wax isweydiiyeen ciidamada amisom xagee baan kaga dacwoonaa malaha oday dhaqameed aan kaga dacwoono haddaba mid ka mid ah saldhigyada magaalada muqdisho taliyaasha ka ah ayaa sheegay in ciidamadii amisom ee jiirsiiyey ninka gaariga uu ku qabtay xariyaale lana xisaabtami doono taas oo aan la ogeyn run iyo beentiis waxa ay tahay haddaba ciidamada amisom dowladda Soomaaliyeed wax ma ka qaban doontaa oo ma la xisaabtami doontaa mase sidooda ayay ku noqon doonaan dibidaysan Ali Xasan Aadan Cali Hiiraan faaliyaha qaranka TV-ga caalamiga Universal Muqdisho barnaamijka faaliyaha qaranka oo ah barnaamij aad iyo aad loogu soo shaqeeyay juhdi badan la geliyay ayaa waxaa hadda taagan dadweynaha maadaama barnaamijkan ay aad iyo aad u xiiseeyaan ama barnaamij aad iyo aad ay ula socdaan maadaama uu noqday waxaan rabnaa fikir ahaan barnaamijka faaliyaha qaranka sidee ayaad u aragtaan dadweynow waa fikirkiina arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaheena abbaaydeena aamina macow falyatafadal adoo garbasaarkaa wadatidaan ku leeyahay barnaamijka faaliyaha qaranka oo muddooyinkan dambeba ka socday telefishinka Universal xafiiskiisa Muqdisho ayaa maanta waxaa noo suurta gashay inaan shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha inaan ra'yigooda ama wax ay ka qabaan sida ay u arkaan
aan weydiino waxayna ku jawaabeen sida tan ahaantii barnaamijka faaliyaha qaranka waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan wax badan ka bedelay dalka Soomaaliya ayadoo laga hadlayo horumarka dalka dib u dhaca meelaha dib u dhiska u baahan wadooyinka la dhisay faaliyaha qaranka run ahaantii bulshada Soomaaliyeed wax badan oo ka daban la ayo indhaha ugu kala qaaday soo dhaweynayna waan taageersanaa faaliyaha qaranka wax fiican oo lagu farxaa asuu biseen waa ku meedsantii maxaad damacsantahay macnaha maxaad isleedahay in lagu kordhiyo macnaha fikradaada wax ma lagu kordhinaa wax ma laga dhimaa see wixii damaca ku jira ama fikradaada ay ku jirto ma sha Allah intaana ku faraxsanaa ku taageersanaa waxaan dhiilayaa in la sii badiyaan dhiilaa barnaamijkaas oo waqtiyo badan oo suuragal laga dhigo isboortigan lagu soo daro aad u maasanta maadaama aad xiran tahay funaanada isboortiska xiisaysan sax barnaamijka waxaan u aragnaa wax fiican haddana hawsha aawadiin inaad sii ballaarisiin oo si fiican aad ka sii dhigtiin oo dadka dembiyada ay galaan oo dawladda ka galaanna si ay ugu galaan inaad u sheegtiin oo xaqiiqada ah shacabka degan magaalada Muqdisho waxay noo sheegeen inay faaliyaha qaranka ay ka faa'iideysteen kana heleen xog badan aamina macu Cabdulle faaliyaha qaranka Muqdisho waxaa dhacday in hotel Jubba horta meeshiisa jooga ma guurin laakiin waa la dadaqray waa la baabi'i qorsagaara loo qabtay waa la kaji jilib iyo xusra laga badiyay usdan dhiiga ka baxooya ka bacdiya degan dheh hotel Jubba dad waa degan yahay dib ma lahan haddana lo oshina degan lo waxay ka imaayeen Madiina geeskeed number 4 imaay baabuurtu iska ilaaliyay dabkay soo marayay Samafara markii joog waa joogsay idana markii Samafara la shid waa soo bixisay u soo socoto hotel Jubba ay tagay waa raacay looda hotel Jubba meeqa dabaq waay haddii kan shanaad ay degan tahay kan afraad ma ku hakeeyay biyo ma ka dhameysay biyo haddii la salaam xataa waa ka jeesay Jubba inay lo degan tahay waxa inoo haaya wariyaheena علي هيران ما أقول له ما سراعي شكب اسمه خلالكي ما سلطقي علي هيران كسر دواو burburkan aad arkaysaan waa hotel Jubba oo ahaan jiray hoteelada ugu muhiimsan dalka Soomaaliya oo ay ku faani jirtay wasaaradda dalxiiska muddadii dagaalada sokeeye ay ka dilaaceen dalkeena isla markaasina wehel waxay u noqotay halkaasi in ay ku noolaadaan lo aad u fara badan taas oo ay saarayeen dabaqa sare ee hotelka caanaha loodaasi ayaa waxay caan ka noqdeen dhammaan magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Shangaani oo hotelku ku yaalo caanahaasi ayaa waxa loo baashay caanaha Jubba mid ka mid ah dadka degan hotelka Jubba ayaa waxa aynu weydiinay loodaasi halka ay ku dambeysay iminka waxa uu ku jawaabay waxaa daluf walba iska timiday loodii hadda waxna waa joogan oo ilaa iyo hadda waa joogan waxna waxay jiraan baadiyo waxna waa naga baaba'een loodaasi hotel Jubba deganeed caanahooda loo yaqaan caanaha Jubba maxay kaga duwanayeen looda kale waxay kaga duwanaayeen ma ahayn caanaha oo dadka ay sida xun oo qaldan u isticmaalaan ilaahay diintiisa aysan raalli ka ahayn sida ay ilaahay u keenay iyaga ayaa dadka loo siin jiray wax maaragtay lagu dari jiray ama lagu yaani farsamay jiray ma jiraan marka looda waxay deganeed dabaqa sagaalaad ama aan ka arki jiray mar aan jidka maray ayadoo maaragtay ka soo taagayso dhuunta marka haddeertaan loodii xaggee ku dambeysay weli meesha saaranta maya hadda waxa waaye waxaa dhalatay dawlad markaas waxay aheeday hoobiyaa socday marka sida daraaddeed ayaa shafka loo geliyay si ay looda u badbaad sidaasaa loo geliyay halkani waa hotel Jubba oo dakhli aad u fara badan ugu soo xaroo jiray dawladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre iminkana ka muuqdo burbur aad iyo aad u ballaaran halkaas oo ay degan yihiin dad barakacayaal ah علي حسن آدن علي هيران فاليها قرنكا هوتل جبا مقالة مقدشو عبد الخني تريبول oo inoo sheegaya waxa na seejiyay qarannimadeena noona horseeday qabyaalada cabdikhani tribul fal yatafadal yaman aragtaa yab aragtaa khataro adan ku fadhinaa qabyaalad baa ina seejisay qarannimo kolkaasaynu isa seegnay dowladnimo goortuu qof waliba ay ku raftay cadkayga ii gooy
yaaq iyo tiyeglo ilaa tuurti beled weyne tabca bariga beelaha taleex kalama maarmaan tukarraq iyo ood weyne iyo hawdka tiigsaday boorama tog dheer iyo buraan waatus wada daaq tafiir wada xigta iyo xidid ah bay kala takooreen qof waliba adduunyadan guudkeeda ku nool waxa uu leeyahay mabaadi lama taabtaan ah sida sharafkiisa waxa uu aaminsan yahay iyo wixii kale oo la mid ah qofkaas markay isku tagaan oo ay noqdaan ummad meel ku nool waxa ay yeeshaan mabda guud oo ayaga ka dhaxeeya kaas oo ugu dambeyntii ayaga u noqdaa astaan tusaale dowladaha carabta marka aad timaado astaanta guud ay leeyihiin waxa ka mid ah allah thumma alwatan athawra alwahda rabbiga sare aan caabudno kadib dalkayga kacaanka midnaanta laakiin Soomaaliya marka aad tagto waxyaabaas ma shaqeeyaan tolana ugu wacaniyo intaan taag isku habsaanay tarab u leyno intaan tiraynay beesheenna intaan talada weydii lahayn jaahil xiran tuute tuug siyaasi sheegtana intaan sacab u tuuyeynay waa toosan yahay aynu laynkiina tirayaayo eray aan tashiilayn amaan tuun ku rayraynay tacabiyo asaageen cilmiga tiiri noloshiisa tiigaal cadceediyo higsada tirada meeraa tanaado waxay leeyihiin kuman taxdiiraa tiyagas iyo galabtii ayay tamash la fuulaan haweentooda loo bogo ayay taxalla yeeshaan haddaba cayaal bacaadka ilbaxnimada qaladka ka fahamsan marka aad la sheekaysato iskaashigii ku dhisnaa deegaanka dadkii isu keenay xoolihii waxa uu kugu fasirayaa isbahaysi magac beeleed loo bixiyay kolkaasaa laysku wada rakibay qolo waliba meesha ay joogto ee fikrado ah annaga tiro xoog karti caqli iyo aqoonba ugu badan ayadoo ummadan lagu sheegay in wax xaq aysan lahayn kolka aad weydiiso sababta loo takooray ummadan waxa ay ku leeyihiin annaga waan ognahay dadkan dhaqan dhalasho iyo dhiigba in ay nala wadaagaan laakiin awowii dhalay ayaga odagaas bay mushkiladu ka taagan tahay basbas iyo burkaki aas isku cunay halka awowaha ayaga hilibka sararta uu ka cuni jiray ma la isku daalooyaa ayada meesha nin baahan hunguri uu cunay hilib uu cunay hadiiba lagu midnaanaya imise sana ummadda dhiigoodii la cabaayay ruux wali dhibtuu galay ama dhagar wuxuu falay marka dhiidku qariyee la hordhiga qoraal laga dhowray qaladkii dhitadaadi weeyaan dhiilna waad u culatee oo been la dhaartiya laaluush wax dhicinayn daraartaa qabyaaladii dhacdada ama wehelba qabyaalad darteeda oday in nabadda hormuud uu noqdo laga sugaayay marka aad la sheekaysato waxa uu la nool yahay fikrado noocaas oo kale ah dadka kaliya ay ka badbaaday waa ardaydii ka soo aflaxday madaarista kuwaas oo marka sheekooyinkaas oo kale aad ula tagto difaacoodii uu xiran yahay maxaa yeelay waxa ay aaminsan yihiin ayaga Soomaaliya ehel wada dhashiya ur quray ka timid oo aadan iyo xawa abuurtoodii baanu nahay kana sareeyo midkaana suldaan ku dhalay isku dheelitirka siyaasadeed ee ku dhisan qabyaalada marka aad dib u fiiriso waxa aad helaysaa wasiir amaba xildhibaan dowladii hore ee kacaanka aad ku ogeyd beel dowladihii burburka maalin waliba beel cusub inta uu sheegto ayuu magaceedii wasiir amaba xildhibaan uu ku noqonayaa tusaale odageysay dowladii hore ee kacaanka isku beelaynu nahay ayuu ku faani jiray burburka marka uu dhacay dadka ugu horeeyay ee qaxay ayuu ka mid ahaa Kenya ayuu nooga hormaray marka aan ka daba tagnay kadib waxa uu noo soo dhajiyay Soomaali sujuud waan ahay muddo meesha deganaa wuu ku wareeray Sacuudigu u soo xamaali tagay marka aad salaanto wuxuu ka horkeenayaa yaa warya Yemeniya ayuu taagaya carka fuj adiga midii khalacneedna waa wataa suurinka la isku fadhiyay iyo samka la isku reedo silaaca iyo xabada saxiix ma idin ku dhacay oo masasebena aakhir weeyo ida zulzilad suuradu say sheegtay iyo saacadii dhowdahay Soomaali sinji uma lahayn ummad wada siloon intaan suur ku yeerin dado oo samaxa dalbada مثال كلو فود أنا إدين سيو حالدي كاكوما الجحيم مركا لا ودا جوغي ummadii oo dhan waxa la wada sheegan jiray in ay yihiin minority dad laga tiro badan yahay dad xaqooda lagu tuntay si America iyo Canada loo helo darteedii hadaba maxay danta inoogu jirtaa dastuurka hanqaata qaata qodobada cilmiga raaca qarankeena qorshe loo sameeyaa innagoo khilaafeena aynu gaarna khayrkee Soomaaliya isdaba qabo kuwa Soomaali wax u bartay
ee diaasbarada ahaa ayagana hadda leeba qabyaalada iyo turuxayduba ay ku cusub tahay maqaayada iyo qabyaaladaad ku bandhaynaysaan facebook xitaa maadan dhaafina macallimiinta ku nool muqdisho gaar ahaan kuwa wax ka dhiga dugsiyada loogu magac daray aada iskuulka ama go to school ayaa waxay ka cabanayaan jeesa la-aan ma aha sabuurad la-aan ma aha buug la-aan ma aha miis la-aan ma aha kursi la-aan ma aha waxay ka cabanayaan waxaa nolosha tiirkuwa ah ayagoo ka cabanaya mushaar la-aan qofka ugu yar 2 bac ilma as guriga ugu soo tagay nafay qabaan subaxdii aabbeena shaqo aadaa la leeyahay aabbihii inaas guriga kasoo baxana luuq ma geli kara hadhow ma soo joogsan karo aabbayaal badan oo ilmaha usoo gooyaana jiro oo shaahi isay u cabaayaan shaahigii xataa waxay ku dhiibaan laheen oo iga bixi camal hadhow gurigaa la imaana aabba shaqow ka imid ilmihii waaye macallimiinta oo ka cabanaya mushaar la-aan ama khidma la-aan sababtoo ah qofka bini aadan waaye naf leey waaye ilma haddii laga bixiya xataa si nafow leeyahay nin iska jeeda leh sabuura leh maanta dhan wax ku dhigaayo yaa hal maalin wallahi ma celi kartiin halaha galaaska ku jiro 30 hadayiin kuwii inaad celi karin bay khamiisii jimca dil soo deed celi karin bay marka macallimiinta oo ka cabanayo mushaar la-aan khaasatan macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada loogu magac daray go to school ama dugsiyada aada warkaasna waxaa inoo haya wariyaheena inanteena yariisteena abbaydeena aan jecelnahay waa amran nakataa amran riwaayad lee lagu bartay amran oo wariyeena falyatafadal wejigeedsiisu ekaya fiiriyab amran aawe soo gal abay dowladda Soomaaliya ayaa 2013 sanadkii tagay waxay ku hirgelisay guud ahaan dalka Soomaaliya barnaamij ah aada dugsiyada ka ay wax ka baranayeen carruur Soomaaliyeed oo gaaraya 1 milyan dhanka kale waxaa soo wajahay macallimiintii wax barayay mushaar la'aan kaga timid dhanka dowladda arrinkani waxay niijib ku noqonaysaa carruurtii hami u haysay inay wax bartaan ayna u ballanqaaday dowladda Soomaaliya waxbarasho lacag la'aan ah amran xaaji macaale faaliyaha qaranka Universal TV magaalada Muqdisho daawadayaal warka sidiisaba mala cuno mana la calaaliyo mana la dhunjiyo war saliid ma mala marsahayo waxaad ku soo dhawaataan suugaan yar oo aan ka soo shaqeynay oo dalac bilaash ah nyaanyada waa ku badan tahay ukuna ka buuxda barbarooni wax laga hilmaami mala filfil kaali arag laakiin bisbaasa ku buuxa hadaba biiqawo diyaarsada ku soo dhawaada suugaantii dalac bilaash ka ahayd sida arkataaliyo gumurasasa lala hele yaa oo garabka jabano waligo ina dhaawaca halgelel labdaydi galaf agurxanka iyo riigiringa intagogo shahibiyo galdhadhamankiyo oho laba gacal ahaado haye isugohayaane kow magam ehe magamada maqan masagudaa qalagaagaad sidaydaha galgalaad oho gablantala adduunyoy guldalooda badana aye inta ay gabaabsiday maxay geesin layliday waxay gubay oo aan la golongo golgol midan gararano sheciilo waliila aqal ohow laba gacal ahaado goga isugohaane
magam ehe magamada aguri masaguda haqada nafsina mugabobo ya wagun an harino warya ganmada madayo guri mayloba godobde inta guda weeraraye olga taalaya waran gacma haygaga laba gacal ahaado oo gacal isu goohaane magaalada muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya baabuurta qaada xamuulka ayagoo waktigooda uu dhammaaday waxa cusub caalankaa jeclaa la yiri laakiin aniga muqdisho waxaan ku arkay waxa xun caalamkaa jeclaan ka arkay baabuur waxaan arki waxaan ku qiyaasi mala baabuur waa moodi tariin ma joogo macnaha wejigiisaaba naxtin lahaa hadii isku soo day usoo ku dardarin joogadka dhaceeb baabuurtii waktigii dagaalka meel la dhigay ayagoo la dayactirin ayagoo hal vita laga bixinin ayaa waxaa la soo geliyey saf degada ay galayaan waxaa soo qaadahaa 3 beri rarkiisa askaligiisa soo qaadahayo waa walaalkaa wax uu helina umalena aniga ilaan baabuurta waa badan tahay waa aragnay qof walbana hunguriya ahaayo teeda kale waxaan la yaabanahay darawaliinta waaba khaldan yihiin aaway ciidankii joogay degada aawa booliiskii aawa securitkii baabuurkaas maxaa loo qabo waayo loo dhihi waayo warniyahow bal xoogaagaan daji magaalada baabuurteeda waa badan tahay dad waaweyn baa mara ciyaal baa mara adigana tabartaadaaba iska yar si loo socdo waa la noogaa waa la jiifaha jiira baad isgalaya waa jiifaha ilaan fariin male dhagaxaa laga dawada o ka leexo o dhagaxaa loo dhigaa web baabuurtaas dhibaatooyin fara badan ayaa lagu qabaa waana ila aragteen maalin waxaa dhacday buundada markino askoo ku dhagi rukub wax ka fajihaya mala dadkii mashquul waa ayaga dhan ma fikirayaan baabuurkii asaan loo kilkilaa bas ani caasigaa fuuli waa soo degi waxaan dhahay dhegeys idinka dhan horta aqli ma qabtiin waxaan dhahay baabuurkan buundada maku dhegano buundadan kor u qaadeynaa buundada koowaad waaye markiiska baxo buundadan soo dejiheynaa ile aqli kale ma lahan baabuurtaas dhibaatooyin fara badan ayaa lagu qabaa ayagana dhibaatay isku qabaan laakiin ma oga warkaas ama arrintaas ama qodob warkaasi sheegayo ama arrintaasi waxaa ka hadli doona mudane cabdi maxamed ilka case ilkaan teestkaaga jibiha waa ogtahay ani falyatafadal cabdi maxamed ilka case walaalkey falyatafadal baabuurtan dhibka ay dadku ku hayaan noo sheeg wararaan ka helina magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan baabuurta xamuulka ee ka shaqaysa dekada magaalada muqdisho kuwaasoo aad u fool xun qaarkoodna ay sanka iyo gafuurka ka go-an yihiin kadibna ay ka argagaxaan dadweynaha khaasatan caruurta iyo dumarku ayaa welwel badan lagu qabaa hase yeeshee waxaa qayladhaan ka muujiyey dad fara badan baabuurtan foosha xunxun ee dusha ka faydan iyo gafuurkaba ka faydan ayaa mar hore waxaa ballan qaaday in magaalada laga joojin doono wasaaradda gaadiidka iyo weliba gobolka Banaadir hase yeeshee go-aanka ay qaateen wasaaradda gaadiidka iyo weliba gobolka Banaadir ayaa wuxuu noqday halna kama jiraan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay oo magacooda ku soo gaabshay walwal iyo walbahaar ayaa waxay codsadeen in ay baabuurtaasi ay shaqeeyaan wixii ka dambeeya 6 saac oo habeenimo waa waqtiga loo yaqaano kala barka habeenimo hase yeeshee taa ayaan waxaan la ogeyn sida ay u suurageliso waayo baabuurtaasi haddana way indhala yihiin barkay wax la ira ay ku socdaanna ma haystaan sida ay u suurageliso la arki doone cabdi maxamed ilka case faliha qaranka TV-ga caalamiga Universal muqdisho daawadayaal fiirsadayaal nadayayaal intaas waxaa inooga dhan caawa
qodobadii aan kusoo qaadnay barnaamijkeena faaliyaha qaranka. haddana waxaad sugaysaan oo aad dhooreysaan dhegtiini ishiin ay u taagan tahayna waa saaxiibkeyga abwaankeyga Maki Xaaji Banaadir oo noo akhriya wargeysyada waxay qoraan. Maki kusoo dhawow. mahadsanid cabdi muriid dheere ajakis. bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada oo xiliyadan oo kale aad uga barateen tv-ga caalamiga ee Universal. daawadayaal toddobaadba wargeys ayaan kusoo qaadnaa, balse toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa wargeyska sidaad doonto u qaado. wargeyska sidaad doonto u qaado waa wargeys ka faallooda alaaba arrimaha bulshada iyo loolanka siyaasadeed oo dalka ka jira. wargeyska sidaad doonto u qaado boggiisa koowaad wuxuu daafur uga dhigay afhayeenka beesha baasto balbalaar alxaaji 49 oo shir jaraa'id ku qabtay magaalo madaxda wadanka Sweden ee Stockholm. afhayeenka beesha baasto balbalaar alxaaji 49 shirkiisa jaraa'id wuxuu ku faahfaahiyey wargeyska oo si jeexjeexa ayaa ku bilaabay. afhayeenka beesha baasto balbalaar alxaaji 49 wuxuu yidhi beesha baasto balbalaar oo anigu aan ka dhashay waagii kacaanka shaashadda siyaasadeed si aada ayay uga dhex muuqdeen. door sharfan oo muuqda ayay ku lahaayeen, balse sagaashameeyadii wixii ka dambeeyey ayuu yidhi afhayeenka beesha baasto balbalaar alxaaji 49 beesha waxay noqotay beel leesku tuurtuuro oo marba dhinac loo rido, marba dhinac loo saaldeeyo, marba dhinac loo dharbaaxo, marba dhinac loo feero, marba dhinac loo khaniino, marba dhinac loo goosto. waayo wuxuu yidhi beesha baasto balbalaar xiriirada kala dhexeeya beelaha sida wuxuu tusaaleaan usoo qaatay beesha soorgaley, beesha digirgaduudey, beesha salboko, beesha bocor katitow, beesha bocor hindi, beesha nyaanyo, beesha basbaas gaduud, beesha timir, beesha tuun, beesha xildiid, beesha cusbo, beesha sonkor, beesha bur, dhammaantood beesha moosbukeeni, beesha bataato, dhammaantood wuxuu yidhi xiriirkeena aaduu u fiican yahay. weligeennana iskama hor imaan, khilaaf siyaasadeedna nama dhex marin. laakiin afhayeenka beesha baasto balbalaar alxaaji 49 wuxuu yidhi waxaan dhexda uga jirnaa beelaha bariis baasamati iyo beesha baasto fino. labadoodana marba mid ayaa na sheeganaysa oo dhehaysa beesha baasto balbalaar annagaa xukunna, annagaa u talina, maya uma talisiin, annagaa u talina, maya adinka nima xigaan, annagayna xigaan, waxba idinma dhexeeyaan, annagaa dhalanay, annagaa isku beel ah, marba dhinac ayaa lanoo jiidayaa ayuu yidhi afhayeenka beesha baasto balbalaar alxaaji 49. wuxuu intaasi raaciyey, wuxuu yidhi dhowr jeer ayaan wax dhisanay, balse barbaleemka jiro wuxuu yahay uu yidhi waxaan dhisanaba ma dhaqaaqaan, ma socdaan, halkooda ma dhaafaan. beesha nafteeda oo aan ka dhashay uu yidhi afhayeenka alxaaji 49 waxaa lagu hantaa buu yidhi inay u kala qaybsan yihiin beelaha bariis baasamati iyo beesha basta fino. ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey ama shirkiisa jaraa'id afhayeenka beesha baasto balbalaar alxaaji 49. wargeyska sidaad doonto u qaado. haddii aan intaasi ku dhaafno wargeyska xiga oo suugaanta soomaaliyeed iyo mahmaahooyinka aalaaba isagana wax ka dhaha amaba wax ka taabtaabta. maanta waxaan kusoo qaadanaynaa 3 mahmaah oo wada dha ah. waxaan ku bilaabaynaa wax la dhalay iyo dhulka marti loo yahay. wax la dhalay iyo dhulka marti loo yahay. dhul isisin aa isku maqan, dhigaala dheel dhugna kala haw. intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada. dhinaca kaamarada waxaa iga saaciday saaxiibkay Makhosle, anigoo Buurfool Banaadir ayaa soo saaray, halkan ka soo jeedinayay. intaynu barnaamij lamid ah toddobaadka dambe isaga imaanayno hadduu alla idmo dhammaanteen oo isku duwan waxaan ku dhaafeynaa nabadin nool kulanta amaana Allah iyo amaana rasuul. intaas waxaa noogu dhan barnaamijkeenii caawa ee faaliyaha qaranka qodobadan aan kugu soo qaadnay.
in sha allahu intaan ka kulmeyno haddii ilaahay ama noola dhihin meedka cafiya waxaan idinkaga tegeynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bahda barnaamijka faaliyaha qarankan waa idin salaamayaan anigana waa fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka fartaha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogeynaynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeenna fartaha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka fartaha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorare fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka